Salaada afar meelood oo gacmaha kor loo qaado maad samaysaa? Haddaba intaanan kuu sheegin codsigan fuli, subscribe saar kanaalkeena YouTube. Salaadu waa mid ka mid ah tiirarka diinta, waana rukniga labaad ee arkaanta Islaamka. Ilaahay ayaa baray salaada Jibriil, isna Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuu baray. Salaadu waxa ay u tahay nuur qofka tukada, qiyaamahana waxa ay u tahay badbaado. Waxaa ka sugnaaday Nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh in afar meelood oo salaada ka mid ah gacmaha sare loo qaado. Meesha koowaad, marka salaada la xidhanayo, takbiirta koowaad ayaa gacmaha sare loo qaadaa. Meesha labaad, marka lasii rukuucayo. Meesha saddexaad, marka rukuucda kor looga soo toosayo. Meesha afraad, marka atixiyaadka koowaad la dhammeeyo ee loo sii kacayo ragcadda saddexaad. Habka kor loogu qaado gacmaha waa laba hab. Habka koowaad waa in lala simo gacmaha labada garab. Habka labaad waa in gacmaha lala simo labada dhagood.